naagtan xijaaban oo niqaaban aadkan u quruxda badan ayaa ninkan hortiisa wejigeeda ku fayday, laakiin arrin la yaab leh ayuu ku sameeyey. waxa uu ku sameeyey ayaad la yaabi doontaa. ninkan wuxuu ahaa harqaanle ama dawaarle. markii uu gudaha sii galayay ayay si degdega uga soo daba oroday. markuu soo fiiriyey ee uu damcay inuu dharkii tusiyo ayay wejigeedii fayday. wuxuu yidhi acuudu billaah. quruxdeeda ayuu la cajabay. waxay tidhi ha yaabin, aniga halkan waan ku cusbahay, dhowaan ayuu ninkayga dhintay. salaamun minallaahi calaykum walaalaha aan halkan ku saaxiibnayow, soo dhowaada. qisadeenna maantay, naagtan xijaaban oo niqaaban aadkan u quruxda badan ayaa ninkan hortiisa wejigeeda ku fayday, laakiin arrin la yaab leh ayuu ku sameeyey. waxa uu ku sameeyey ayaad la yaabi doontaa. ninkan wuxuu ahaa harqaanle ama dawaarle. maalin maalmaha ka mid a ayaa waxa u timid naag xijaaban oo niqaaban, waxayna ku tiri ma haydaa dharka tolmada oo noocaasa. wuxuu yidhi haa waan hayaa. gudaha ayuu u gudbiyey si uu u tuso dharkii. markii uu gudaha sii galayay ayay si degdega uga soo daba oroday. markuu soo fiiriyey ee uu damcay inuu dharkii tusiyo ayay wejigeedii fayday. wuxuu yidhi acuudu billaah. maxaa yeele waxay ahayd qof aad u qurux badan, quruxdeeda ayuu la cajabay. waxay tidhi ha yaabin, aniga halkan waan ku cusbahay, dhowaan ayuu ninkayga dhintay, ciddadii aan ka tirsanayana way ii dhammaatay, mana haysto cidi kafaalo qaadda. waxaan wejigayga kuugu fayday haddii aan ku cajab geliyo oo aad igu qanacdo inaad i guursato. haddii aanan ku qancin oo aanan ku cajab gelinna waan iska laaban doonaa. wuxuu yidhi ma xuma, laakiin aniga xaasile ayaanahay, waxaan qabaa gabarh uu adeerkay dhalay, aad ayaana u jecelahay. waxay tidhi kuma dhahayo xaaskaaga fur, laakiin asbuucii oo dhan hal maalin oo aad ii imaato ayaa igu filan. sidii ayuu ninkii gabadhii ku guursaday, guri ayuu degsaday, asbuuciina hal maalin oo ka mid a ayuu u tegi jiray. xaaskiisii hore ayaa aragtay arrin la yaab leh, ninkeediina way ka shakiday, maxaa yeelay asbuuc kasta maalin ka mid a ayuu dib dhacaa. khaadumadeedii ama shaqaalaheedii ayay tidhi ninkayga dabagal oo soo ogow meesha uu aado maalintaas. naagtii shaqaalaha ahayd ayaa daba gashay ninkii, waxayna aragtay guriga uu galay. deriska ayay weydiiday gurigan yaa deggan. deriska ayaa dhaheen waxaa deggan naag uu ninkeedii dhintay, haddana waxaa qaba nin harqaanla ah. asbuuciina hal maalin oo ka mid a ayuu gurigan yimaadaa. naagtii shaqaalaha ahayd ayaa u timid xaaskii, arrintii oo dhammaystiran ayayna u sheegtay. xaaskii hore ayaa tidhi arrintan cidna ha u sheegin, ilaah baan kugu dhaarshaye. naagtii shaqaalahayd ayay ku tidhi. ninkeedana sida ugu wanaagsan ayay ula dhaqmi jirtay, qof aan waxba ogayn ayayna iska dhigi jirtay. wakhtiga iyo waayaha ayaa maray, ninkii harqaanlaha ahaa ayaana dhintay, dhaxal ahaanna wuxuu ka tegey 8,000 oo dirham. ninkan markuu dhintay wuxuu ka tegey 2 xaas, laakiin 2 xaas middii hore ayaa waxay haysatay wiil. 2 naagood dhaxal ahaan way u siman yihiin oo mid walba waxay leedahay 500 oo dirham. 7,000 oo dirham oo kalena waxaa iska leh wiilka. xaaskii hore ayaa lacagta gacanta ku hayday, way awoodday, suuragal ayayna u ahayd inay qaadato lacagtaas dhammaanteed, laakiin ma aysan samayn. waxay tidhi maya. qaybteedii ayay ugu dhiibtay naagtii shaqaalaha ahayd, waxayna tidhi gacanta ka saar, bal fiiri akhlaaqdaas. muuqaalkan like saar, beejkana ku soo biiro falow soo dheh si aan u ogaanno tirsiga dadka muslimiinta ayna soo booqday. muuqaalkana sii shaargaray. mahadsanid.